asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal kulanti waxaan wanaagsan meelobad ku sugatiin kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caawa iyo caalamka waxaanu kusoo qaadanaa qodobada uga xiisaha badan iyadoo xiisadaha caalamka ka jira ay yihiin kuwo isi soo taraya waxaa isku dhegan wadamada ugu quwada badan dhinaca militariga adduunka sida Shiinaha, Mareykanka, Ruushka, wadamada kale Iran, Turkiga, wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale xiisada wararkii ugu dambeeyay ee Canada iyo Sacuudiga ka dhaxeysay aan daawadayaal soo qaadan doona hadii ay bahayno saamaxo laakiin ayna ku bilaabano xiisada ayaa waxa ay ka dhex jirtaa Mareykanka iyo sidoo kale wadanka Turkiga. madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaana sheegay in xiriirka ay leeyihiin Mareykanka uu haatan gaarsiisan yahay heerkii ugu xumaa isagoo tilmaamay in xukuumadda Ankara ay samaysan doonto saaxiibo ama isbahaysi cusub. xiriirka labada wadan ee ku wada jira NATO ayaa sii xumaanayay iyadoo sarifka lacagaha dollarka iyo liraha wadanka Turkiga uu ka gaaray heerkii ugu sareeyay. wargeyska Mareykanka ka soo baxay New York Times ayaa sabtidii maanta qoray in madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu xukuumadda Washington ku wargeliyay in aysan halis gelin xiriirkooda haddii kale ay samaysan doonaan saaxiibo cusub oo dhabarjab ku noqon kara wadanka Mareykanka. ilaa iyo intay Mareykanka ka bilaabayaan inay xushmeeyaan qarannimada iyo sharafta Turkiga waxaan u sheegaynaa in xiriirkeenu uu ahaa doono mid dhamaado oo meel xun gaara. Erdogan ayaa sidaa yiri. madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa tilmaamay in haddii aysan Washington ka laaban go'aanadeeda qaldan ee ka dhanka xiriirka labada wadan Turkiga uu samaysan doono saaxiibo cusub go'aan kalena uu qaadan doono. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa horey bogiisa Twitterka ugu soo daabacay in xiriirka kala dhaxeeya Turkiga uu xilligan yahay mid aan wanaagsaneyn waxaana hadalka uu yimid kadib markii Jimcihii shalay madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan uu sheegay in Mareykanka ay haystaan dollar laakiin ay dadka reer Turkiga ay haystaan Allah. Turkiga ayaa la aaminsan yahay inay gaashaanbuur la noqon doonaan wadamada kale ee la tartama wadanka Mareykanka sida wadamada Ruushka, Shiinaha iyo dalal kale oo Yurub ku yaala. dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Iran ayaa sheegtay inay garab taagan tahay Turkiga ayna cambaareynayso ficilada Mareykanka ee ku wajahan dalka kala qaybiya Asia iyo Yurub ee Turkiga. militariga wadanka Shiinahana waxa uu ku dhawaaday in ay weeraraan markab iyo diyaarado laga leeyahay wadanka Mareykanka. xiisad iyo tartan xoogan ayaa ka dhaxeeya dalalka Shiinaha iyo Mareykanka. awoodda labada wadan ayaana keenaysa in wadan walba uu kan kala ka shakiyo. ciidamada militariga Shiinaha ayaa 6 mar digniin siiyay markab iyo diyaarado laga leeyahay wadanka Mareykanka kuwaas oo si aan la filayn u galay badda koonfurta Shiinaha. markabkan ayaa waxa ka duulayay dhowr diyaaradood kuwaas oo markii ay gudaha u galeen dhinaca Shiinaha loo soo diray digniino xoogan. cod dheer ayaana lagu gaarsiiyay diyaaradaha militariga Mareykanka. halkan waa China. waxaan idinku amraynaa in aad si degdeg ah uga baxdaan oo aad ka fogaadaan ama aad ka fogaataan oo aad ka dheeraataan isfaham darro walba oo dhacda ayaa lagu yiri warar lagu daabacay TV-ga ama warar laga sii daayay TV-ga CNN-ka wadanka Mareykanka. laakiin arrinta lama filaanka ayay ahayd in diyaaradaha qaar ee Mareykanka ay doonayeen inay weli ku sii jiraan badda Shiinaha. jawaabta diyaaradaha Mareykanka ayaa u muuqday kuwo diidmo ah iyaga oo sii watay roondada ay sameynayeen. TV-ga CNN-ka ayaa wariye ka tirsan waxa uu sheegay in sababta ay diyaaradaha Mareykanka u gaareen badda koonfurta Shiinaha ay ahayd inay helaan muuqaalo ku saabsan jasiirad ay Shiinaha ku dhexleeyihiin koonfurta badda Shiinaha dhexdeeda. labada wadan ayaa waxa ka dhaxeeya tartan xoogan. TV-ga CNN-ka ayaa sidoo kale warinaya in arrintan ay soo dedejin karto dagaal lama filaan oo dhici karay. isla arrimaha wadanka Mareykanka iyo wadamada kale ayaynu ku guda jirnaa ee Iran ayaa waxa ay digniin markaas siisay wadanka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Mohammad Javad Zarif ayaa meesha ka saaray sidoo kale in ay wada hadallo la yeelan doonaan xogayaha arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Mark Pompeo. Mr. Trump ayaa madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa horey u soo saaray go'aan adag oo cunaqabatayn lagu saarayo wadanka Iran laakiin dalal ka mid ah reer galbeedka ayaa go'aanka u arkay mid aan wanaagsaneyn. ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iran Mr. Zarif ayaa waxa uu u sheegay wakaalada wararka ee Tansiim maanta ma jirto wax kulan ah oo la qorsheeyay horey ayaana u sheegnay go'aankeena. arrinta dalabkii ugu dambeeyay ee Trump go'aanka saraakiisheena waxaa horey u sheegay madaxweynaheena iyo anigaba Mareykanka ma ahan kuwa daacada ayuu yiri wasiirku.
madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa horey ugu hanjabay in liiska madow uu ku dari doono shirkadaha ganacsiga ee markaa ganacsiga la sameeya waa shirkadaha ganacsiga la sameeya wadanka Iran. dalalka Shiinaha iyo xubno kale oo midowga Yurub ayaa diidan go'aanka Mareykanka uu ka gaaray arinta Iran. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa jeediyay hadal degniina oo ku aadan in laga baaqsado dagaalkii saddexaad ee dunida. arintu markan ma aha in xiriirka Mareykanka iyo Iran arinta ka dhex jirta waxay la xiriirtaa sida Mareykanka uu la dhaqmayo dhinaca wadanka Turkiga. wasiirka ayaa yiri Mareykanka waxaa qasab ku ah inuu joojiyo cunsuriyadda iyo cagajugleynta ama adduunka oo idil ayaa u midoobi doona si loogu qasbo in uu ka laabto go'aanadiisa qaldan, ayuu yiri wasiirka. dhinaca kale wadanka Iran ayaa waxa uu xaqiijiyay inuu tijaabo ku sameeyay mid kamid ah gantaalada ugu dheereeya ee maraakiibta laga tuuro toddobaadkii la soo dhaafay. war ka soo baxay dowladda wadanka Iran ayaana lagu sheegay in tijaabadaas ay u dhacday si wanaagsan. dowladda ay kamid tahay dowladda wadanka Mareykanka ayaana cabsi xoogan ka muujinayay tijaabada cusub ee dowladda wadankaasi Iran ay sameysay. generaalka ugu sareeya ciidamada militariga ee dhexe ee wadanka Mareykanka ninka la yiraahdo Joseph Votel ayaa waxa uu sheegay in horaantii toddobaadkan ay dowladda ama xukuumadda wadanka Tehran ay tijaabisay gantaal lamid ah gantaaladii horey u tijaabi jirtay oo weliba qaab cusub loo naqshadeeyay oo horumar wanaagsan lagu sameeyay. way caddaha buu yiri sida ay tijaabada u sameeyeen in ay ahayd fariin ku socota wadanka Mareykanka, ayuu u sheegay saxaafadda sargaalkan u hadlay ciidamada wadanka Mareykanka. Iran ayaa waxaa hadda ay xiisad xoogan ay kala dhaxaysaa wadankaasi Mareykanka. sargaalkan Votelna waxa uu yiri in wadanka Mareykanka ciidamadiisa mar walba ay yihiin kuwa diyaarsan haddii amniga wadanka Mareykanka la soo fargeliyana ay diyaar u yihiin inay difaacaan. dhammaan waan ka warqabnaa wax walba oo aan ku difaaci doono wadankeena, ayuu hadalkiisa ku yiri. wargeysyada qaar ee wadanka Mareykanka ayaana qoraya in arintan ay tahay mid cusub oo dowladda wadanka Iran ay ku doonayso inay ku horumariso hubkeeda casriga ah si ay isaga caabiso wadamo ay kamid yihiin wadanka Mareykanka. laakiin arinta kale ee la yaabka ayaa waxa ay tahay in tififtiraha wargeyska la yiraahdo Arman ee ka soo baxa wadanka Iran ninka la yiraahdo Ali Reza Farqani uu sheegay in dowladda wadankiisa ay u baahan tahay dagaal, taas oo cabsi xoogan ku ah wadanka Mareykanka. waxa uu tilmaamay in ay diyaar u yihiin in ay bartilmaameedsadaan 112 saldhig oo Mareykanka uu caalamka ku leeyahay, taasna ay tahay mid markaa Mareykanka cabsi xoogan ku abuuri karta. Iiraaniyiinta ayaa waxa ay aaminsan yihiin in dagaal la galo si wadanka Iran uu u badbaado. Ayatollah Ali Khamenei oo ahaa aasaasihii maamulka hadda ka taliya wadankaas 1980 ayaana horey u sheegay in uu aaminsan yahay in dalka wadanka Iran uu markaa dagaal u jooga yahay oo haddii uusan dagaal gelin isaga lagu soo xadgudbi doono. wargeyskan qofka amaba tiftiraha wargeyskan ayaa waxa uu tilmaamay in ay tahay in bambooyin iyo waxyaabaha qarxa loo adeegsado 112 goobood oo Mareykanka uu caalamka ku leeyahay. Mareykanka iyo sidoo kale wadankaasi Iran ayaana xiisadooda waxa ay socotaa muddo aad u dheer, iyadoo cunaqabataynta cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay wadanka Iran ee xaaladda sii adkeynaysay. dhinaca kalena isla arrimaha wadamada bariga dhexe ayaynu ku guda jirnaaye ra-iisul wasaaraha wadanka Ciraaq ninka la yiraahdo Haydar al-Abadi ayaa waxa uu booqasho lama filaan uu ku tagi doonaa wadamada Turkiga iyo wadanka Iran toddobaadka soo socda. arintana waxa imaanaysaa xilli xiriirka wadamadan labada ah ra-iisul wasaaraha wadanka Ciraaq uu booqan doono iyo Mareykanka ka dhaxeeya uu gaaray heerkii ugu sareeyay. wadanka Ciraaq ayaana saaxiib dhow iyo gaashaanbuur la ahaa wadanka Mareykanka tan iyo markii ciidamada wadanka Mareykanka ay intooda badan ka baxeen wadankaasi. Abadi ra-iisul wasaaraha wadankaasi Ciraaq ayaa waxa uu tagi doonaa wadanka Turkiga talaadada soo socota, kadibna waxa uu Arbacada gaari doonaa wadanka Iran, waxaana uu wada hadalo dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka wadamadaas uu kala soo hadli doonaa wadamada
waxaa lasoo sheegayaa in wadanka Ciraaq dadaal xoogan uu ku jiro in uu wadamada Ganshabuur la samaysto iyada oo wadanka Turkiga uu kaalin weyn ka qaato sidii xoogaga muqaawamada ama xoogaga islaamiyiinta ah ee kasoo horjeeda dowladda wadanka Ciraaq meesha looga saari lahaa oo dowladdu ay si markaa ballaaran ay dalka ula wareegi lahayd. Mareykanka ayay u muuqataa in hadda galaangalkii uu ku lahaa bariga dhexe uu markaa u weynayo dhinaca wadamada Iran iyo sidoo kale wadanka Turkiga. ugu dambeyntiina xiriirka u dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo sidoo kale wadanka Canada ayaa u muuqda mid aad weli u sii xumaanaya, laakiin waxaa soo baxaya baaqi ku aadan in xiisadaha lagu xaliyo qaab wada hadala. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda wadankaasi Canada ayaa waxa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha wadanka Canada in uu booqdo magaalada Riyadh isla mar ahaantaana uu la kulmo madaxda wadanka Sacuudiga si xal rasmi ah looga gaaro arrintan. waxa uu sheegay in ay tahay labada wadanba in ay tixgeliyaan rabitaanka iyo danaha ay kala leeyihiin isla mar ahaantaana qaab wada hadal lagu xaliyo xiisadan. xiisad xoogan ayaa waxa ay ka dhex taalaa amaba ka dhex xoogan tahay labada wadan. wargeyska The Guardian ee kasoo baxa wadanka Ingiriiskana waxa uu warinayaa in wadanka Canada uu diyaar u yahay in uu wadanka Sacuudiga uu ku cadaadiyo in ay ka laabtaan go'aanada qaldan ee khilaafka keenay. dowladda wadanka Mareykanka ayaa horey u shaacisay in aysan diyaar u ahayn in ay kala dhex gasho ama ay mid uun la jirsato wadamada waa boqortooyada Sacuudiga iyo sidoo kale wadanka Canada. وهاجاك داوديال intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo qodobo dhowr aynu kusoo qaadanay anigoo Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa qodobada idila socodsiinayay kuwa lamid ah intaynu ku kulmi doono habeen wanaagsan ayaan idiga tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.